الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وديالكن ومانت تيفي waxaad ku soo dhawaataan waraysi gaar ah oo aan maanta la yeelan doono Dr. Siyaasi Mukhtaar Maxamed Cali oo kamid ah siyaasiyiinta falaqeysa arrimaha siyaasadda gudaha iyo tan dibadda Dr. bal ku soo dhaw TV-ga maanta magaalada Muqdisho aad iyo aad ma santii waan salaamaya TV-ga maantana waa salaamaya boqolkiiba boqol waa mahadsantii haddii aynu ku bilowno madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle iyo wafdi ballaaran hogaaminaya shalay waxay soo gaareen gudaha magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waxaa soo dhaweeyay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo mas'uuliyiin ka tirsan kuwa dawladda federaalka Soomaaliya maxay Soomaaliya u fadhidaa boqoshada madaxweynaha jamhuuriyadda Djibouti inuu Muqdisho yimaado madaxina oo la kulmo waaweynay dawladda Djibouti waa dawlad dhisan waa dawlad maaragtay aan burbur uusan gaarin laakiin annaga markii la yiraahdo Soomaaliya maxay uga dhigan tahay xaqiiqatu waxa weeye Soomaaliya waa dal burburay waa dal maaragtay 30 sano dagaal ku soo jiray Soomaaliya waxaan hadda waxa lagu tilmaamaa waa magaalada Muqdisho oo kaliya marka booqashada uu madaxweynaha Djibouti ku yimid magaalada Muqdisho waxa weeye horta dhibay geysatay oo jidadka waa xiran yihiin saddex bari magaalada waa la marlaaya horta dhibaatada dadka shacabka reer Muqdisho ugu jirta waxa maaragtay dadka reer Muqdishona odayaasha iyo siyaasiyiinta iyo culimadu waxa reer madaxweynaha Djibouti si gaar ah inay la kulmaan markooda ay la kulmaan ayaduna ma dhici doontaan u maleynaya waa sida aragtidu ay tahay marka imaatinkiisu waxa weeye dabcan waa arintan madaxweyne Farmaajo ayaa maaragtay ayaan dhaxay qaladaad ka galay Djibouti qaladaadkii uu marka inuu saxo waa infitaareeyay booqashu ku yimid safaaradna waa uu furayaa baa la yiri oo dawladda Djibouti ay ka furnayso Muqdisho marka waxa la socda wafdi ballaaran wasiirka arrimaha dibadda dabcan saan maqlaynay wasiirka gaashaandhiga wasiirada badan baa la socda marka waxa weeye waa arrimo siyaasadeed oo Farmaajo maaragtay markuu ku fashilmay siyaasadii magaalada Muqdisho ama Soomaaliya ayuu inta u tagay buu gudaha qabsaday oo warkaalayo maaragtay waxay marka saas uu ku socdaa inuu maaragtay wax la jiijiido waxna u qabsoomi maayaan waxa weeye Farmaajo 2 sano ayuu joogaa magaalada Muqdisho meel kale ma tagin labada control lama dhaafi karo magaaladan habeen iyo maalin waa bandow dadkeeda waxa weeye habeen iyo maalin average-ka maanta 5 qof dhimata marka waxa weeye xilliga uu ku soo aaday madaxweynaha Djibouti oo Soomaaliya xilligan la joogo waa xilligii ugu xumaa waa xilligii ugu hoggaan xumaa Soomaaliya hoggaankii ugu xumaa oo ugu daciifsanaa ayaan joognaa waa abaar waa gaajo marka waxa weeye maaragtay waa arin maaragtay ummadda Soomaaliya wax qiimaha maaragtay saas uga fadhiso aniga aragtida markaan ka hadlo siyaasi markaan ka hadalno booqashada madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle waan la soconaa Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waxa uu booqashooyin kala duwan ku tagay qaar kamid ah wadamada Afrika oo Ethiopia Kenya iyo wadamo kale oo qaaradda Afrika kamid ah Djibouti waxa la leeyahay xiriirka Soomaaliya Djibouti qayb ma wanaagsan qayb kama aysan ahayn booqashada oo Farmaajo bixinaya kulankii ugu dambeeyay Soomaaliya iyo Ethiopia iyo Kenya ay ku shiraan magaalada Nairobi ee dalka Kenya oo dadku qaar ay ku sheegeen la xalinayo khilaafka u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya oo dhanka badda ka bilowday iyada arintaasi maxay ka bedeli kartaa kulamadii socday oo madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle uusan qaybta ka ahayn oo dadaaladii maalmihii dambe oo odaga ka ahaa madaxweynaha ra'iisul wasaaraha dalka Ethiopia Abiy Ahmed madaxweyne Farmaajo markuu ra'iisul wasaaraha Ethiopia uu maaragtay gacan yaro u noqday oo Eritrea isla aadeen oo walaalaheen Djibouti maaragtay aan loo tagin oo aysan partner ka ahayn macnaha booqashooyinkaas iyo maaragtay meetingka badan iyo maaragtay waxa weeye marka qalad laga galay Djibouti laakiin haddeer waxaad moodaa inuu ayaan dhow u tagay oo garaws oo maaragtay uu soo barbariyay oo uu yiri warniyo maaragtay baashi waa iga leeday bal maaragtay kaale xogaa maaragtay baashi la toos midda maaragtay aad leedahay ra'iisul wasaaraha Ethiopia waxa weeye waa nin maaragtay wadanka la wareegay xukuumadii hore oo maaragtay tigraagu hogaaminayeen asaga maaragtay bedelay markuu bedelana waxa weeye si degdeg ah xamar ku yimid waa la ogaa waxa la yiraahdaa 4 dekedood la siiyay waxa la yiraahdaa ciidamo marin soo samaystay marka waxa kale oo la yiraahdo Soomaaliya Ethiopia la isku darayaa marka ra'iisul wasaaraha Ethiopia ninkan xamar joogo Farmaajo waa ninka gacanta ku haya waxaan ka baqaynaa wax badan oo anagu aan ogeyn inuu u seexay oo hadhowti dhibaato ay ku noqoto ummadda Soomaaliyeed hantideeda si loo soo celi lahaa ama loo badbaadi lahaa ayaa dadku Soomaaliyeed cabsi ku jiraan
aad baa looga walwalayaa marka ilaa hadda nagama soo harin maaldood waa loo yeeray waad ugeed farmaajo asoo waa looga yeeray Kenya xiriirkeenu waa tuu ayaan dhawaad xumaaday ka xiriirka xumaada laftigiisa farmaajo mas'uulka ah markii loo yeeray si qaab daraasii gabar aroos inta la kiciyaa Nairobi la geeyay oo maartay ninkii oo maartay isku dhacsanaayeen oo Uhuru Kenyatta loo geeyay si qaab darana wax loo soo wixii waxa weeye marka waa qaladaadka uu galayo madaxweyne Cabdullaahi Farmaajo uu galay Kenyana waxa ka xanaajiyay waa isaga badda xaday Soomaaliya ma aysan ogeyn anagu ma aan ogeyn xatooyadii ayaa waxa ka dhashay banaanbixi Ingiriiska ka dhacay taasoo marka ay Kenya ayaduna ku soo baraarugtay marka waxa weeye qaladaadka dhan oo dhacaya waxa ka mas'uula waa Farmaajo Dictor Soomaaliya waan u jeednaa sida ay ku socoto badii muran baa la gelinayaa siyaasadii ma wanaagsanatan dibadiitan gudaha Soomaaliya xagee u socotaan dhig karna aad iyo aad u maasantahay su'aal muhiim ah weeye nin Soomaaliya lama hubantilaana jirta meesha u socoto xaqiiqatu markaan si sax ah aan u hadalno Soomaaliya xilligan meel ay u socoto lama yaqaan waxa weeye wadankii dhamaaba waxaad moodaa in maartay meel kasta la saxay oo dawladaha dariska loo saxay ayaad moodaa waxaan maartay la saxayana baarlamaankii Soomaaliya war uma hayo baarlamaanka laftigiisu mid ku waala tila maahan awal balaaluusha lagu keenay iyo jacbur iyo dhibaato iyo kala dhimasho saasoo ay tahay haddana Farmaajo bahdilay wuxuu ka dhigay ilmo yar yar oo guriga u joogo ka dhigay cod ma lahan aqlabiyadna ma lahan aragtina ma lahan marka waxa weeye wax ka warqaba ma laha Farmaajo wuxuu sameeyay wuxuu siixay cid ka warqabta ma lahan waxaan baan ka baqayaa magaalada Muqdisho hadaan joogno inuu waa hore cid u siixay oo la qaato magaalada Muqdisho ayaan ka cabsanayaa anigu cabsidaas ay u jirto rumaantii haddii aan soo laabano tan gudaha magaalada Muqdisho markii ay madax soo degayso ama ay duulayso inta badan waa la soconaa wadooyinka gudaha magaalada waa la xiraa shacabku dhibaatooyin kala duwan ay ku qabaan xirnaashaha wadooyinka iyadoo wadooyinka xirayna dhibaato loogu soo daray ciidamada ammaanka dawladda federaalka Soomaaliya sugaya amniga wadooyinka dil iyo dhaawac bay u geystaan askar baa la dilay shalay ugu dambeysay shacab waa la dilay yar mutabajilaal lagu dilay qaybo kamid ah magaalada agaarka Digfeer bal arintaas ida ka waran Dictor aad u maasantahay waxa weeye magaalada Muqdisho waxa ka jira caalamka kama qarsoona annaguna waa ka hadlaynaa waana u jeednaa magaaladana habeen maalin waa bandow xaqada marka la rabo habeenkii iyo maalintii lama soo baxo qofku gurigiisu hoos uga jira markuu magaalada ka yimaado gurigiisu galaya aday 9 saacada hoos u ka xiranaya habeenkiina iska wadaa waxa weeye magaaladan Farmaajo habeen iyo maalin bandow ka dhigay waxa weeye dadka magaaladan ku nool waa la dilaa average waxa lagu qiyaasay maalinkii 5 qofood oo dhimasho magaalada lagu dilo waxa ugu sii daran kuwa nimanka mootada bajaajka wato saddex lugoolayda waxa weeye wadadii ka xiran askari minishibiya qori wata war xagaan ku arana askari minishibiya qori wata askari minishibiya buleeta goonayo yaanyada iyo canshuuriga arki jirnay ayaa u imaanaya askari minishibiya lacag weydiinaya uu leeyahay keen lacagtii meel qofkii marka wadadii waa ka xirantaa meel la mara waa jam markuu yiraahdo lacagtii keen ma hayuu leeyahay wuxuu leeyahay marka mid laaluusha ay tuur ma hayuu leeyahay markaas kadib waxa bad ku dhajinaya habeen walba la dilaa maalin walba la dilaa dadka reer Muqdisho canshuurta dalka iyo miisaaniyadda la yiraahdo maartay dalka dawladdan meeshaan fadhida Farmaajo uu wada hogaaminayo ay ku shaqeyso waxa dhiiba bakaaraha suuq bacaad aeroboortka dekada laga qaada walaahi baan ku dhaariyay cadaalad darrada ka warraba ninkii Puntland joogay xamar uu lacag ka rabaa kan Jubbaland joogay xamar uu lacag ka rabaa kan Hargeysa joogay xamar uu lacag ka rabaa magaalada marka la yiraahdo marka hadana baday markii maamulkii la yiraahdo taliyaha booliisku uma dhal magaalada Muqdisho waa nin ka soo jeeda goboladaas gobolka kale ka soo jeeda gobolada Puntland la buuxo ka soo jeeda waxaan ku ri dadkii magaalada deganaa oo deegaanka ahaa soo ma ahayn in degmooyinkii taliyaasha saldhigyada loo dhiibo garsoorkii loo dhiibo dadkii ayaa kala yaqaan ninkii tuuga ninkii wax leeya wax ayaa kala yaqaan cadaalad darrada ka waran dadka sida loo bahdilay reer Muqdisho aad iyo aad aan wax u nahay Farmaajo intuu noo geysay ma ilaabi doono haddaan nahay siyaasi haddaan nahay hooyooyin haddaan nahay askari waxa uu ku dhaqmana jabhadihii dalka soo maray kuma dhaqmaan marka waxa weeye magaalada Muqdisho meel kasta laga qarribay xitaa degaankii hadda waxaan ognahay madaxweyne Farmaajo inuu degaanka hadda qaadanayo oo dad cusub uu rabo magaalada xamar inuu soo dejiyo oo dadka degaanka ahayn oo magaalada uu leeyahay maliidin xamar maliidin war xamar qof walba degaankiisu leeyahay xamar dad dega Soomaaliya waa la soconaa burbur kala duwan ay soo martay colaado kala duwan baa soo maray ciidamadii ay la jirtay sidii u dhisnaayeen uma dhisna dalka waxaa jooga in ka badan 20,000 oo askari oo ka tirsan
amisom oo wadamada afrika qaarkood ka yimaaday qaramada midoobay bixisa lacagta ay ku joogaan halkani askartii dawladda federaalka Soomaaliya way cabanayaan waxay leeyihiin in ka badan 4 bil mushaar ma aanan qaadan furiimihii baan ka soo bixinaa leeyihiin dawladdiina waxay leedahay mushaarka waan bixinaa arintaas iyada bal xagee iska qaban laada aad iyo aad u mahadsantahay waa su'aal fiican waxa way sideeda dawlad marka la yiraahdo dawlad aan ciidan lahayn horta dawlad ma aha dawladdii siyaad barre oo militariga ahayd oo dictatorka ahayd 30 sano ka hor markay kala tagtay ciidamo qaran waa la waayay ciidamo Soomaaliyeed oo isku darana waa la waayay ciidamadii marka Xasan Sheekh markuu meeshan ka tagay maleesiyaadka iyo askartii hore iyo nuucyada isugu jiray oo dhisnaa waxa burburiyay farmaajo burburiyay qaab qabiil ka dhex arkay xogta waa la soconaa waxba inaan qariyaan ugu mar rabo isaga burburiyay 4.5 uu isku dayay inuu qaybiyo qaar uu shaqadii ka eriyay kuwa waxaan ognahay uu hadda Masar u diray waxa weeye isaga burburiyay markuu burburiyay haddana wuxuu ugu daray xuquuqdoodii inuu sii waayo bal 4 bilood oo maaragtay nin xaquuqdiisa ka maqan tahay oo $100 awalba $100 la siin jiray oo hadhiman ha noolaan way maaragtay 4 bilood ay ka maqan tahay oo haddana laga yaabo inuu magaalada banaankeeda joogo waa inay cabaadayeen waa maqlayno qaar ay hadda waa soo baxaynaa aan habeendoodana maqlayo wadahaya waxa way marka farmaajo ka dambeeya asaga nuxuusiyay isaga maaragtay daciifiyay waana barnaamijka u degsan farmaajo oo ka damacsan yahay magaalada Muqdisho haddii aynu fiirino dhanka maamulka Galmudug waxaa la sheegayaa in doorasho la qaban qaabinayo inay ka dhacdo deegaanada dawlad goboleedka Galmudug waan la soconaa xaaladda Galmudug ku jirto laba madaxweyne laba gudoomiye baarlamaan iyo laba magaalo madax oo cadaaday dhuusan mareeb kale madaxda ay kala fadhiyaan oo Galmudug waa xaaf iyo xambaasto madaxweyne Axmed Ducaale Geelle xaaf waxa uu leeyahay doorashada weli la isma gaarino 2 sano ayaa harsan dawladda federaalka Soomaaliya waxay wadaa qorshe in doorasho la qabto oo laga soo bilaabo madaxweynaha Cabdikariim Xuseen Guulada ay ugu bilaabanaysaa leeyahay Sheekh Maxamed Shaakir Ali Xasan oo madaxa xukuumadda hadlay waxa uu sheegay in isku dhafkii ahlu sunna iyo Galmudug ay ka bilaabanayso madaxweynaha iyaanta uu sii joogi doono bal arintaas iyada maxaan kala soconaa aada u mahadsantahay arintaasi waa horta arin jirta weeye waana arin taagan arinta Galmudug niyow waxa weeye Galmudug waa dhibaato la soo diristay dhibaatadaasna waxay ka abuurantay booqashadii farmaajo uu ku tagay Galmudug marka ka horna wuxuu aaday meesha la yiraahdo qardho tagay qardho markuu ka yimid uu soo maray Galmudug waa dhisnayd caadi bay ahayd ciidamadeedu waa isku darsanaayeen waa fiicnayd barnaamij wuxuu markaa la yimid inuu burburinta Galmudug wax la yiraahdo waana burburiyay wuxuu isku daray cadaado iyo dhuusamareeb iyo gaalkacyo ayuu isku diray waa barnaamijka farmaajo uu ka damacsan yahay dadkan maaragtay ayaga oo reer Muqdisho waa barnaamij ka damacsan uu la tagay burburintaas uu ku wadaa waa kala irdheeyay haddana doorashada uu sheegay wax soconaya maahan wax macnaha ma yeelanayso abuud waaqa leeyahay waxba ka socda cadaada waxba ka socda farmaajo waxa dhisaya farmaajo wax ma dhisi karo laakiin waxa waa dumin kara waa nin dumis khibradeedana ma lahan aqoonteedana ma lahan Soomaalinimadeedana ma lahan wadaniyadeedana ma lahan waa nin dudumis iyo 90 iyo 1 ay ku qoflan tahay runtaan sheegaynaa waxna kama dhisi karo waxna kama qaban karo waxa weeye dadka iska laha la rabaa inay fariistaan oo iimaanka isgeliyaan waxna isku ogolaadaan meeshu wabi ma leh beer ma leh waxa weeye geeda ma leh xoolo ma leh waa dhul deserta oo lama dagaana waay dhul maartay qarfa waay marka dadka iska laha u taala u dhashay gobolada ka soo jeeda inay ayagu dhaqaale waa haystaan inay dhistaan magaalooyinkooda oo ayagu maamulkooda habaystaan laakiin farmaajo barnaamijka Galmudug saga ka dambeeya waa barnaamijku maartay u degsanaa weeye waa wax xamar uu ku hayaa Galmudug marka taasi waa barnaamijkii farmaajo waxa kaliya daawo lagu gaari karaa dadka deegaanka ka soo jeeda inay fariistaan waan ku soo gabagabeynayaa haddii aynu fiirno saxaafadda Soomaaliya dhibaatooyin kala duwan baa saxaafadda wajahaysa haba ugu darnaatay saxaafadda Muqdisho ka shaqeysa meelo kala duwan ay dhibaato ka haysata dhanka iyo madaxtooyada la yiraahdo ama guud ahaan magaalada Muqdisho bal iyada arintaasi maxaad ka leedahay aada u mahadsantahay arintaas niyo anigu horta saxafi maahay laakiin suxufiyiinta iyo siyaasiyiintu waa wada shaqeeyaan wax badan aan kala soconaa waxaan ognahay ayaan dhaweyd xataa dhowr bar ka hor inta loo yeeray madaxtooyada horteeda in maaragtay dhibaato lagu gaarsiiyay wariyaasha Muqdisho xaqiiqatan waxa weeye aad iyo aad ayaa dhibaato u gaartay dad badan dhamaaday
dadkaas la dilayo oo dhamaadana maaragtay aan systemka xamar ka jira ama kuwa hore ama kuwa dambe ayaa mas'uuliyadda inta badan qaadaya oo ayaga iska leh oo ayaga dadka ammaankooda inay sugaan rabi waa sugu waayeen ayaga laftigooda lagu eedeeyaa inay dhibaato u geystaan maxaan ku yiraahdaa saxaafadda Muqdisho marka waa dhiban tahay dhalinyarada yarkeeda rajada waa la laayay waa la baabiyay ilmahoodu waa la agoonteeyay wax xuquuq male wax system male saxaafaddu system ay leedahay sharci ay leedahay nidaam ayaga iyo systemka marka dalka ka jira u dhaxaya jira meeshan wax system kama jiraan dawladdan farmaajo dukumeenti ma lahanba waxa la qoro malaba waxaad moodaa isbaaysiga dooxada jubbo kale waa la jeexjeexa warqadda markii wax lagu qoro marka waxa way saxaafadda waa dhimatay waa la dilay inta u dambeysana farmaajo baabiyay wiilal yar oo madaxtooyada jooga asagoo adeer u yahay ayaa maaragtay saas u galo oo maalin walba u bahdila maaragtay saxaafadda waxa kale oo jira maaragtay hadda waxa jirta for example waagii hore waxa jira tababaro badan oo la yiraahdo ciidamada loo qaadaya ama saxaafada la qaadaya wixii hadda waxa noqdeen wax ku kooban farmaajo wuxuu wato ayaa la qaadaa oo waxa la ciidana la qaadaya meelaha inta la geeyo waxa la soo barayaa dhoob addition miyaa la yiraahdo maagan waxyaabaha la jarjaro oo la kala googooyo oo maaragtay Facebook shaqadiisa sida wax loo qaldo Facebook waxa la soo dhigo sida loo raabgareeyo loo tirtiro waxa soo dhan oo maaragtay waa ciyaal shaqadii ciyaalka amal ayuu maaragtay ninkan wadanka ku wadaa waxaas qof qaangaar iyo qof weyn midna waa ka madnuun marka waxa weeye qaabkiisoo dhan waxay noqdeen inuu qof walba la diriro oo magaalada Muqdisho jooga oo nidaamkii la diriro oo saxaafadii la diriro oo ciidamadii la diriro oo maxaan ku raaa shuruucdii dalka u taalay shuruuc ilaahu tooba shuruuc ma dhigi kare qaanuunkii maaragtay qabyada ahaa shuruucdana anoo kitaabka Ilaahay weey qaanuunkii qabyada ahaa inuu la diriro inuu gudoomiye baarlamaan la diriro war ninkaan waa masiibo loo soo diray Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho masiibo loo soo diray weeye ayagaana doortay war mar dambe waxa noocaas ah dooranina oo marka dooranaysaan sideeda banaan waxa xaraam ah in la doorto nin dhalasho dalka la wato kow maanta taasaan ku talinayaa waa in la doortaa nin hal dhalasho wato Soomaaliya midda labaad waa in qofka caafimaadka la baaraa waa in xanuun laga baaraa waa in jirkiisa la baaraa waa in maskaxiyan loo baaraa waa in diintiisa la baaraa waa inuu la baaraa inuu soomo oo salaado waa in la baaraa iimaanku intuu leeyahay iimaankiisa in la baaro way ee qofka inta loo sacbiyo in meel lagu fariisiyo waa midda farmaajo aad ku aadaan reer Muqdisho iyo ummadda Soomaaliyeed waxa weeye marka dibka maantay Muqdisho haya waxaan Ilaahay ka codsanayaa rabbiga wanaag casiiska inuu naga dul qaado geeridii aan ugu badatay dhaawacii aan isbitaalada waa buuxan maaragtay waxaan soo maray intuu farmaajo joogay nama soo marin haddeerna waxaan leenahay hadduu isceli waayo labada sano waxaan u sheegayaa dadka reer Muqdisho inay iska dhiciyaan oo la dagaalo gudahaan daawadayaal waraysiga gaarka ah oo la yeelanay Dr. Siyaasi Mukhtaar Maxamed Cali oo ah siyaasi falanqeeyaha arrimaha siyaasadda gudaha iyo tan dibadda waa naga inta Dr. aad baa maastan aad mudan thank you very much